48 saac ee la soo dhaafay mareegta social media waxaa hadalheyn badan dhalisay gabadha lagu magacaabo Abwaan Naciimo Qorne, taasi oo mar qura baggeeda waxa ay ku soo qortay Facebook erayo iyo sidoo kale qaab qoraale iyo waliba gabay ay ku karbaashaysay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Mudane Roble. waxay ahayd saacado dhowr ah oo mareegta social media qaybta Facebook inta badan isla dhaxaya hadalheyn badan. hadalheyntaas waxay ka timid gabay ee mar qura ku karbaashaysay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Mudane Roble. dad badan ayaa gabadhan aad u taageerayay, inkastoo kuwa badan ay aad u dhibsadeen ficilka ay ku dhaqaaqday taasi, kuwaasi oo dhammaantood aad uga xumaadeen erayada iyo sidoo kale gabayga ay ku garaacaysay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Mudane Roble. gabadhan oo ah gabyaa islamarkaana waxyaabo badan ayay soo tabisaa, islamarkaana bogga Facebookgeeda iyo Twitterkeeda waxay ku soo qortaa gabayo iyo sidoo kale erayo murtila. waxayna hore uga tirsaneyd dowladii hore ee Soomaaliya, taasi oo hadda xilka lagala wareegay ee dowladii Farmaajo. inkastoo ay mucaarad badan ku leedahay bartamaha geyiga Soomaalida, si lamidana waxa ay leedahay muxaafid badan kuwaasi oo aad u taageera lana dhacsan habdhaqankeeda iyo sidoo kale qoraalada ay soo gelinayso mareegta social media, qaasatan Facebookgeeda iyo Twitterka. balse 48 saac ee ugu dambeysay waxa ay noqotay qofka ugu saameynta badan uguna hadalheynta badan isla markaana mareegta social media oo dhan isla dhaxwado, taasi oo mar qura sheegtay in Soomaaliya aysan weli ka gudbin qabiilka iyo sidoo kale ee xashada. waxay tiri weli waxaan sii ahaan doonaa fikirkeyga, weli waxaan u taagnaan doonaa hal fikirkeyga oo qofna ima leexin doono, sidaan ahay ayaan ahaan doonaa. waxay leedahay bartamaha caasimada iyo sidoo kale geyiga Soomaalida kuwa badan oo aad u taageero, si lamida taageerayaal kale oo aan jecleysan habdhaqankii ay ku dhaqantay iyo sidoo kale gefkii ay u geysatay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka. inkastoo ay tilmaamtay inaysan gef u geysan, haddana aragtiyada dadka wax ku cabira ayaa kuwa badan ku taageereen, kuwa badanna aad ayay uga xumaadeen kadib markii ay arkeen gabay ay soo bandhigtay mar qura, kaasi oo noqday midka ugu saameynta badan ee isla markaana dadkii oo dhan ay noqdaan gabadha ay hadalheyn badan wataan. kuwa badan ayaa aad uga xumaaday gabadha sida ay ula dhaqmeen, isla markaana qaarkood YouTuber iyo sidoo kale rag badan oo caan ah oo ku soo caayeen bogogga ay ka leeyihiin mareegta social media. laakiin Abwaan Naciimo Qorne ayaa tiri cidna uma joojin doono, mar walba waxaan ahaan doonaa fikirkeyga, kaasi ayaan matali doonaa. waxaa jirta fikirro kala duwan kuwaasi oo saameynta ka dhalatay 48 saac ee ugu dambeysay ee qoraalkan iyo sidoo kale gabayga ay soo gelisay boggeeda. kaasi ayaa noqday midka ugu saameynta badan maanta oo dhanna Soomaalidu ay noqotay midkii ugu hadalheynta badnaa. Abwaan Naciimo Qorne gabadhan waa gabar hal curisa, isla markaana erayo badan waxay ka soo maaxataa maskaxdeeda, laakiin waxay sheegeen inay u gaftay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Mudane Roble, kaasi oo waxyaabo uusan u qalmin ay ku tilmaameen. waa sida ay qoraalada qaar mareegta social media wareegaya aan ku aragnaa ama aan daawanay. fadlan adigu aragtidaad ka qabto inay ku saxan tahay inay ku qaldan tahay, fadlan hoos noogu reeb, muuqaalkana like noo saar oo noo sii share garay. mahadsanid.